halka wiil aniga ilmo ka qabay wiil iyo gabar baas ayaa nimana iga gatay alooyo ilmaas wixii ka dheeray oo saas ii kala halkaas cunuga agoonnima ku soo koriyay ninka iga dheeray cunugaygaan ilmaha ka qabay aakhiri adduun caafimaad ilmahayga ilaawiga quustay ayaa dib u soo noqotay duco aan qiyaas lahayn ayuu faraqa ku ritay madaxweyne xasan sheekh maxamuud caawa maadaama markii ugu horeysay muddo 3 sano ka badan dib loo arkay muuqaalka qaar kamida dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea xasan sheekh oo horay arinta dhalinyaradan dhowr qaab oo isdiidan uga hadlay ayaa dhanka kale si geesinimo leh ugu jihaystay sidii uu laabta ugu qaboojin lahaa hooyooyin sanado badan uurka uu gubanayay war iyo wacaalna u la'aa xaaladda caruurtoodii tiir iyo tacabba ay ku bixiyeen dayac daal iyo diihaalka wajigooda ka muuqday waxa uga farxad badnayd inay isha ku dhufteen madaxweynaha dalka oo hortaagan ujeedkiisuna yahay inuu kaalin ka qaato dib u soo celintooda iyo sidii ay mar kale u heli lahaayeen nolol qurux badan oo silac joogta aan lahayn welina ay ku dhex qaataan dalkoodii hooyo inkasta oo xasan sheekh dhowr jeer oo hore siyaabo qaab daran uga hadlay arinta dhalinyaradan oo xitaa uu sheegay in sidii xoolihii oo kale loo iibsaday haddana waxaa la xaqiri karin mudanna in la sheego sida uu dhexda ugu xirtay mas'uuliyadna isaga saaray markan kiiskan murugaysan ee dhalinyaradana dalka Eritrea sawiro argagax leh oo laga soo qaaday da'yartan Soomaaliyeed ee tababarka ciidan ku qaadanaya dalkaasi ayaa muujinayay rag gaajadu dilootay indhahu marteen midab ahaana isbedelay oo xitaa ay qaban weysay kaamirada waxa kale oo sawirada laga arki karay dharka ay wateen oo ahaa kuwo aan la mid ahayn kuwii ay xirnaayeen ciidanka Eritreaanka ah laakiin arinta geesinimada leh ee ciidankaasi ciilan ay muujiyeen mudanna in lagu amaano ayaa ah in madaxweynahooda ay u sooreen si mansab sare leh kartina ay ku dheehan tahay dad badan waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha dalka uu caawa ka duceystay hooyooyin Soomaaliyeed oo qayladii ay ka dhamaatay muddooyin badan qaarkood ayaa rajo dhigay oo xitaa kuwo ayaaba aaminay in ilmahoodii la dilay oo aanayba noolayn maadaama ay ka heli waayeen wax xiriir isgaarsiin ah xasan sheekh maxamuud madaxweynihii isbedel doonka ku yimid waxa uu qaaday jid uu ku heli doono dhibca siyaasadeed iyo kasbasho bulsho maadaama arinta ciidanka Eritrea loo qaaday ay tahay qadiyad culus kana mid ah qodobadii uu eedsanayay madaxweynihii xafiiska baneeyay ee Farmaajo inkasta oo arintan lagu kala aragti duwan yahay dadka barkii waxay aaminsan yihiin cidda guusha sheegan karta inay tahay Farmaajo halka mucaaradkii dalka ka jiray oo madaxweynaha hadda xafiiska yimidna uu ka mid ahaa dadkii aragti ahaan ka duwanaa ay qabaan in ciidankaasi dhibaatooyin kala duwan ay dalkaasi Eritrea ku haysatay warkaas oo marka qayb kamida la fiiriyo sawiradii maanta la arkay xaqiiqda u dhow si kastaba muhiimadda caawa ma aha eedeyn iyo yaal libin leh muhiimaddu waa inay nabad qabaan dhalinyaradii Soomaaliyeed dhawaanna ay dib ula midoobi doonaan qoysaskoodii halka wiil aniga ilmo ka qabay wiil iyo gabar baas ayaa nimana iga gatay alooyo ilmaas wixii ka dheeray oo saas ii kala halkaas cunuga agoonnima ku soo koriyay ninka iga dheeray cunugaygaan ilmaha ka qabay aakhiri adduun caafimaad ilmahayga ilaawiga